بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. dhammaan subscriberska aad bay u salaamantihiin. waa farxaan xasan oo mar kale doonaya inuu idila wadaago fiidiyoga waxa weeyaan sidee zip file ama rar file extracting lagu sameeyo zip fileka. inta badan waxaad maqashaano ku leh extracting ku samee shayga walba sida shayga extracting samee, deetana waxaa laga yaabaa inaad fahmi weydo. extracting waxa weeyaan marka ugu horeysa extractingka waxyaabo badan sababo badan baa loo sameeyaa. fileko aada u weyn imika sida gameska oo kale inta badan gameska iyo faylal kale way jiraan, laakiin gameska inta badan gamesko aada u waaweyn runtii size-kooda aada u waaweyn yahay oo game 3GB oo kale ayaa lasku soo aruuriyaa. zip file baa laga dhigaa 1GB bar baa lasku soo aruuriyaa si qofku si fudud u dejisto. marka waxyaabaha extractingka lagu sameeyo mobile android marka isticmaaleyso aad bay u tiro badan yihiin, laakiin kuwa ugu fiican aan aqaano waa mid la yidhaahdo Sidee archiver. dad Google Play ku qorto Sidee archiver waba ka ugu horeeya ku soo baxaya. kan baad isticmaali karaysaa sad extracting file lagu sameyso, ama waxaad isticmaali karaysaa mid kaloo isna loo yaqaano aada u fiican es file explorer oo ka hortaada haddaba yaala sida aad aragto. es file explorer hadda isaa ku dhufto isaguna install garaysan yahay. marka sidee baa wax loo extracting garayaa. marka ugu horeysa soo kicii Sidee archiver, dooro khaanada uu kugu jireen filekaad extracting ku sameyneysaa. aniga xaggan I think inuu xaggan yaalo file wayba fileka insha Allah la soo baxo. anu hadda filekan baan haystaa. filekan sad aragtaan waa rar file weeyaan ama waa zip file nooca loo yaqaano. hadda size-kiisa sida xagga kaaga muuqata waa 12.61 MB weeyaan, laakiin uu ka weyn yahay fileku intan waayo compress baa lagu sameeyey, waa la isku cadaadiyey mise la isku soo yareeyey. marka bal extracting marka la rabo in weliba lagu sameeyo markaan joogno Sidee archiver qaabka loo sameeyo qaab sidana applicationka saa mar click ku sii, deetana option badan baa kusoo baxaya. ka dooro extract here oo bartan ku extract garee oo fileka kasoo dhex saar weeyaan. extracting macnaheedu fileka inta decompress ku sameyso dib yacni u weyneyso fileka kasoo dhex saar weeyaan. decompress iyo maxaa compress baa kala jira. marka extract here marka ku dhufto soo aragtaa extracting buu bilaabayaa. already extracting ku sameeyey filekii hore ka filekii hore waad aragtaan grande auto San Andreas versionkiisu yahay 1.06 oo extensionkiisa ay u dameyso .rar. hadda kan u sareeya waad aragtaan isna waa APK caadi u noqday. hadda extracting ku sameeyey application caadi ah soo baxay. size-kiisana waad aragtaan waxa weeyaan waa 322.250 MB weeyaan, 320 megabyte. markii horena wuxuu ahaa 12 megabyte. es file explorer markaad isticmaaleysa isna saa uguma sii gaadisana. es file markaad ku dhufato saa soo gasho isna marka ugu horeysa waxaad gelaysaa internalka ama baalkii SD cardka hadba midii kugu jiro. hadduu SD card yana xagaas ku soo dhigayaa. hadduu haddaan memory kugu jirin internalka dooro. internal buu hadda igu jira aniga. UC haddaan tago hadda kan hore waa kii aan extracting ku sameeyay iska delete gareeyo.
hadda zip fileka waad aragtaa wuu yaalaa grande photo habaar saa u yarahay highlight markuu isa saaro xagga hoose usoo deg more bartay ku qorantay ku dhufo deetana xaggan card extract to meesha ku taalo waad aragto highlight ku saaran click dheh deetana xagga markay marayso haddaad doonaysa inaad meel kala dhigato bartan waad ka geen karaysaa adoo dooranaya choose path deetana xagga SD card ay ku taalo qoraalka ku dhufanay deetana meesha doonayso ka dhigay memory-gaaga ama maxay ahayday phone-kaaga laakiin anu hadda extract here baan doonaya xaggan ku extract gareeyo barta in ku extract gareeyaan rabaa deetana okay baan leeyahay hadda wada decompressing buu sameynaya xaggaas kaaga muuqata hadda already extracting ku sameeyay faylkii hore waa kaa hadda caadiga la extract gareeyna waa kaa dambe folderka samaystay haddaan ku dhufto waad aragtaa APK caadi iga soo baxay grande photo markaas saasa faylasha loo extracting loogu sameeyaa insha Allah waxaan cashirkan u doortay casharo badan baa jiri doona socdo oo zip file midhan aan siin doono linkiskooda asal extracting ugu soo sameysaan marka inaad wax badan iga faa'iideen insha Allah rajeynayaa channelka hadaan subscribe saar fiidiyoyo badan ayaa channelka ku jira qaar badan insha Allah inaan soo geliyaan rajeynaya hadduu Mawlaha weyne igu simo yaana la dhibsan marka xoogaan dhowrasho fiideo soo gelin waayo fiideoga marka hal fiideo haddaan siraa soo geli waqti dheer bay qaadataa editingkiisa iyo inaan bal u sameeyo qaabka ugu fiican ee dadku wax u fahmi karo anoo isticmaalaya maxay ahayday waxyaabo kala gedisan iyo yacni waqti dheer u baahan YouTube-ka anoo fiideoga HD kusoo upload gareeya si yacni fiideoga si fiican ugu muuqdo iyo maxay ahayday iyadoo yacni waqti badan xaggaana ku lumiyo loading iyo howlaha marka insha Allah channelka ku xidhno subscribe saar haddaan channelka subscribe saarin haddaad su'aal qabto commentiga fiideoga dadka insha like saar maxay ahayday haddaad u baahantahay inaad dhalinyaro maxay ahayday la wadaagto fikirkaaga iyo su'aalo wixii aad qabto groupka whatsappka nagula soo bir linkiisa qaybta hoose description-ka soo dhigaya insha Allah. Assalaamu calaykum. Farxaan Xasan Dalbaax.